kulankani ka dhacay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxa isugu yimaaday ganacsatada suuqa Bakaaraha waxaana kulanka looga hadlayay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya taasoo ku aadaneed in la kala diray rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyagoona arrinkaasi ku tilmaamay mid nasiib daraa waxaana sidoo kale kulanka looga hadlay sida ay u mideysan yihiin ganacsatada Soomaaliyeed isla markaana ay ugu wada shaqeynayaan horumarka dalka Soomaaliya ugu waxaa goobta ka hadlay Maxamed Sheekh Axmed Geedi oo ah kusimaha gudoomiyaha ganacsatada suuqa Bakaaraha wuxuu ugu baaqay madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya in arrinkaasi ay ka fiirsato isla markaana fargelin ay ku sameyso waxaan aaminsanahay inaan cidina xaq u lahayn inay kala dirto wasiirna uusan wareegto sidii mataqaana agaasinkiisa oo kala wareegto inuu inta ku magacaabo oo yiraahdo waa kugu magacaabay adna waa ka diray ganacsatada 30 sano isku tiirsaneed xoolahoodana wada ilaashanaysay hadii wareegto lagu magacaabayo hadba mid la iska keenayo ma jiri lahayd intaysan jirayaan hadii wareegto lagu magacaabayo oo la siyaasadeynayo waxa weeye cidina xaq uma laha inay kala dirto qof mas'uul ah meel waa laga wareeji karaa laakiin cidina xaq uma laha ururkani waa urur Soomaaliyeed oo ururka ganacsatada Soomaaliyeed ah wuxuu la mid yahay ururka saxaafadda wuxuu la mid yahay ururka mataqaana muxuu ahaa haweenka wuxuu la mid yahay muxuu ahaa ururada private-ka ah waa haweeye non government organization weeye dawlad ma aha dawladina ma dhisto iyaga isdoorta iskeena bacdama ay canshuuraha iyo wax walba ka qaadanayaan dawladdu markaa waxay xaq u leedahay inay aqoonsato tiraado haye waa maadsantihiin anagu dawladdiina nahay amaankiinan ilaalinayna waxaan canshuurta unba dawladda siinaysan Abshir Ismaan iyo Daahir Farey oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dhankooda waxay sheegeen in ganacsatada ay qayb weyn ka qaateen dib u dhiska dalka Soomaaliya isla markaana hadalka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya uu yahay mid ay si weyn uga xun yihiin mar labaad codsanayna mar saddexaad codsanayna in laga shaqeeyo midnimadii soo jiri jirtay dadka waaya aragnimada u leh oo hawshaas waaya aragnimada u leh oo soo maray ee rugta ganacsiga ka shaqeey jiray in aan mar kale loo celin dib oo aan rag cusub iyo qalqal cusub iyo hawl cusub lagu bilaabin oo aysan hawsha atarta ka soo bilaabin haddeen taas laga gudbin waxaa imaanaysa kala jab ballaaranay maaha waxaan leenahay marka arrinkaasu si degdeg ah madaxda dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo mataqaana xukuumadda dhamaanteed arrinkaas inaan lagu fududaan ee si taxaddar leh loo fiiriyo sida ku munaasibkaana lagu soo celiyo habboonidiisii iyo maamulkiisii iyo kala dambeyntiisii haddii maamul la waayo wax jiraya ma jiraayaan wax kasta way qarimayaan waxaan ka digaynaa oo nasiib xumo aan leenahay inay timid arinta na soo gaartay ama dhagaha shacabka miidiyaha aan ka maqalnay waxaan leenahay waa ka digaynaa waana nasiib xumayta ayaan leenahay arrinkaas marka waxaan leenahay sida ugu habboon waa in arrinka tanasulaadkiisa iyo wanaagiisa la muujiyo laguna soo celiyo booskiisii hore iyo dadkii wadi jiray ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Shariif Cabdullaahi Xasan waxaan rabaa waqti maharin odayaashii horeeyana aad iyo aad uga hadlay wixii ay ka hadleen horta waxaan qiraynaa inay sax yihiin meeshii dalkan laga keenay waxyaabaha qabsoomayna ilaahay aan uga mahadinaynaa ciddii arrintaas ka soo shaqeysay oo rugta ganacsiga ee horeeytana aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa kaliya inaan taabto dawladdu Soomaaliya rugta ganacsigu waa sector asagu isdoorta oo xor ah ma ahan golo wasiiro in laga soo doorto arrintaas waa arrin aad iyo aad dheeri u ah oo ganacsatada Soomaaliyeed dheeri ku ah waxaan leeyahay mudane madaxweyne ra'iisul wasaare arrintaas waa inaad ka qaadataan go'aan degdeg ah loona helaa wax ka soo baxa gacanta dawladda si loo helo xasilooni loogana baxo dhibaatada hadda muuqata oo ka muuqata ganacsatada waxa ka muuqda sida hadda aad arkaysaan suuqyada gobolka Banaadir dhamaantood waxa ka socda shirarkaasuna way socon doonaan ilaa laga helo xal
xalkaasoo ah xal loo wada dhan yahay oo isla ogola ayna leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed hore ayaa rag hore waxay uga hadleen ganacsatadu intay ku midaysan tahay gobolada ay ka soo kala jeedo maamulada intaaba waxay ku yihiin wada ogol rugtii ganacsiga oo hore u jirtay oo haddana shaqaynaysa iyadaasna wixii soo gaaray oo ka yimid wasiirka ganacsiga waxaan codsanaynaa anagoon amarka dhigaynin oo waxa weeye codsi dawladeena u dirsanayna dawladda waxaan ka rabnaa arrinkaas inay soo farageliso kuna soo faragelisto dawladnimo kuna soo celiso sharafkii iyo karaamadii rugta ganacsiga ay lahayd mar labaad idinkaga mahad celinaya reer Bakaaro waa shirar badan aan geli doonaa haddii alla idmo waxaana idin ballan qaadayaa haddii alla idmo inaad mar badan iyo xilliyo dhow aad hor istaagi doontaan ama ay idin imaan doonaan guddoonkii rugta ganacsiga Soomaaliya intaana waxaan rabaa inaan hortiina aan idinkaga ballan qaado waqti dhowna ay dhici doonto haddii alla idmo aad iyo aad u mahadsantiin cabashada ka soo yeertay ganacsatada gobolka Banaadir ayaa waxay ku soo beegmaysaa kadib markii dhawaan wareegta ka soo baxday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya lagu shaaciyay in la kala diray rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaana magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo isdaba joog ay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed oo ay uga hadlayaan arrimahaasi Cabdiraxmaan waa Beri Som News